ما adiga ii yeedhay hooyo kaala haaya anaa kuu yeedha halka soo fadhiiso goormaad timi mar horaan imi hooye qolkaygan ku jiray xageed ku maqnayd markaa hooyo inaan saaxiibanay xafladiigatay baan u yara tegay miyaanan dhammaantiin idinku odhan markaad meel tegaysaan aniga ii sheega midda kale madan cidna waxba ogeysan baad iska baxaysaa waad maqnayd hooyo markaan anagu baxay sadiga xaafadda jaarka kasoo noqon waayay yaray dhegeyso habeen dambe kuma arkaro adigoo gurigaa ka maqan midda kale anigu inay yarbay xaflad dhigatay iyo waxaa ma aqaano inay gurigooda joogto wax u dhaamaa ma jirto hablaha yare dabadda meeraystana waxay ku dambeeyaan waa la yaqaanaa hooyo anigu waxaan ka odhan lahaa haddaanu banaanka joognay haddaanu guriga joognaba nagu kalsoono hablaha kalsooni baa la siiyaa lama xidho hooyo kalsoonida aanad sinadi ka maqan maxay tahay markaa haddaad nagu kalsoon tahay bixitaanka nooma diideen hooyo taasaa caddayno inaan nagu kalsoonin hooyo bal waxaad ii sheegtaa horeyse iyo dambayso halkay dhaqanka soomaalida kaga jirto inaan habeen kasta gurigooda ka maqan habeen oo dhan aan maqnaana kuma lihin hooyo laakiin habeenada qaar inaanu iska baxno aan iska soo yarcaaweyno hanoo diidin hooyo nayaa malaa si aad u waalataad garan laadee ordayga baxo qolkaaga aad soco halo habeen wanaagsan guhaad habeen lamida walaal wadankaa kiciyo malaa may waan soo jeeday ii waran guhaad ma fiican tahay waan fiicanahay walaal adigu soo ma wacnid waan fiicanahay ana laakiin dhaawi aad maanta ii geysatay waan ilaa hadda ka seexan laayahay beentii aan kuu sheegay soo maaha waan kaa raali gelinayaa may taas kama hadlayo haddaad heebad ka hadlaysaa imaad fahmin miyaa weli waan fahan adag inaabtay fahansi dhaawacaad ka hadlayso hadalkaad maanta igu tiri baa i dhaawacay soo xasuuso hadal gabadh dhaawici karood maanta igu tiri weli maad garan miyaa fahankayga ebere madax xasuusi inaabtay raggu gabar qurux badan markay arkaan way isku dhex yaacaan ana markaan adiga ku arkay waan isku dhex yaacay soo hadalkaasi maad odhan haa waan ku yidhi hadalkaas ay dhaawacay haddaba dhakhtar baan ahayna waad igu tiri dhakhtarkuna isagaa yaqaana beeshinkiisa suu dabiibo habeen wanaagsan